Waa kuma madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. Maxamed Cabdulaahi Farmaajo 11kii bishii Maarso ee sanadkii 1962 ayuu ku dhashay magaalada madaxda Soomaaliya ee Muqdisho. Waxbarashadiisii aasaasiga ah wuxuu ku qaatay Muqdisho. Farmaajo waalidiintiisu waxay ahaayeen samafalayaal gacansaar la leh ururkii dhalinyarada go'nimo-doonka SYL ahaana xisbi siyaasadeedkii ugu horreeyay ee ka hirgelay Soomaaliya. 1970 Farmaajo aabihiisa wuxuu ka shaqaynayay wasaaraddii gaadiidka qaranka. Wiilkiisa Maxamed Cabdulaahi Farmaajo hadda waa 63 sano jir, dhalay 4 carruur ah. Bishii February ee sanadkii 2017 waxaa loo doortay inuu noqdo madaxweynihii sagaalaad ee soo maray Soomaaliya tan iyo xilligii xornimada la qaatay ilaa waqtigii burburka iyo dagaalada sokeeye. Farmaajo ayaa mar soo noqday ra'iisul wasaaraha Soomaaliya intii u dhaxaysay November 2010 ilaa June 2011, xilligaas oo lagu ammaanay hagaajinta laamaha amniga ee Soomaaliya. Sanadkii 2011 kadib bilooyin uu socday isqabqabsi ka dhashay doorashada madaxweynaha, waxa uu oggolaaday inuu xilka ra'iisul wasaarnimo iska casilo, isagoo sheegay inuu danaha dadka Soomaaliyeed awgooda u qaatay go'aankaasi. Maxamed oo lagu tilmaamay inuu yahay siyaasiga ugu caansan ee Soomaaliya markii loo caleemo saaray madaxweynaha, wuxuu la wareegay xafiiska Soomaaliya iyadoo uu dalku wajahayay abaar daran iyo sidoo kale kacdoonno. 8 February 2017 ayaa loo doortay Maxamed Cabdulaahi Farmaajo xilka madaxweynaha Soomaaliya. Xilligaas dhowr sano ka hor wuxuu soo noqday ra'iisul wasaarihii dowladdii madaxweyne Shariif Sheekh Axmed. 8 bishii February ee sanadkii 2021 ayuu ku ekaa muddo xileedkii Farmaajo, balse ma suurtagelin inay qabsoonto doorashada Soomaaliya ee baarlamaanka. Marka la dhiso labada gole ee baarlamaanka ayay dhici kartaa doorashada xilka madaxweynaha, maadaama hanaanka doorashadu yahay mid dadban oo xildhibaanadu ay soo xulanayaan hoggaanka ugu sarreeya ee dalka. Inkastoo hadda ay dowladdu wado doorasho aan heshiis lagu ahayn oo qof iyo cod ah, lamana oga inay dhaqangeli doonto. Farmaajo markii uu dhammaaday muddo xiliedkiisii oo ku ekaa bishii labaad ee 2021 waxaa muddo kordhin 2 sano ah u sameeyey golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Khilaaf iyo isqabqabsi dheer kadib 15 May 2022 doorashadii ka dhacday dalka, waxaa taariikhda Soomaaliya markii ugu horreysay madaxweyne mar labaad loogu doortay madaxweynaha hadda talada haya ee Xasan Sheekh Maxamuud, oo horey u soo noqday madaxweynihii Soomaaliya 2012 ilaa 2017. Hadda Farmaajo wuxuu ka mid yahay musharaxiinta u taagan doorashada madaxweynaha ee lagu wado inay dhacdo 15 bisha May 2026. Baasaboorada ajaanibta ee Farmaajo. Wargeyska New York Times ee ka soo baxa dalka Mareykanka ayaa baahiyey xog sheegaysa in madaxweyne Farmaajo uu haysto dhalashada dalka Canada. Sida uu qoray wargeyska New York Times, nin ay saaxiibo yihiin sidoo kalena qaraabo yihiin Farmaajo wuxuu sheegay inuu markii hore magangalyo siyaasadeed uu ka dalbaday dalka Canada. Farmaajo ayaa tegay dalka Mareykanka sanadkii 1985, xilligaas uu ahaa diblomaasi dhalinyaro ah kana tirsanaa safaaradda Soomaaliya. kadib markii Soomaaliya ay ka bilowdeen dagaalo sokeeye, wuxuu go'aansaday inuu sii joogo halkaas. Ha yeeshee waxaa jirtay in madaxweynuhu haystay dhalashada Mareykanka oo muddo ku sugnaa, waxbarashadiisii qayb ka mid ahna uu halkaa ku qaatay. Sanadkii 2019 waxaa soo baxay war ku saabsan in Farmaajo uu iska casilay dhalashada dalka Mareykanka oo uu baasaboorka haystay. Hadalkaas ayaa daba socday diiniin ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka oo horantii bishii Maarso sanadkii 2018 soo saartay amar ku aadan muwaadiniinta Mareykanka ay xilka saameynta siyaasadeed leh ka haya dalalka kale ee caalamka.